wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo maanta bahda wardoonka kula hadlayay xafiiskiisa ayaan ugu horeyn wax ka weydiinay qorshayaasha xukuumadda Soomaaliland uga yaala joojinta iibka xoolaha oo ay dawladda Sacuudigu dhawaan joojisay maadaama xooluhu ay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee dalka waxaan filaynaa halka waxa imanayay qor Sacuudiina dhaqaatiir oo Sacuudiga ay soo dirayeen shirkii Uganda oo la tagay labadaba waxa dib u dhigay maadaama dhulalka Soomaalidu ay degto oo dhamay ay ka qayb galiyeen shirarkaasi waxa mashquulsanayd oo doorashooyinka shay Soomaaliya tabadeetana waxay noqotay in la isla sugo oo ay arintaas Sacuudigu ka go'aan gaadhideeda laakiin waxaan idin sheegayaa xoolihii warwarkoodu naga hareernay geesta kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa soo dhaweeyay go'aankii shalay ee golaha guurtida Soomaaliland ku meelmariyeen muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda Soomaaliland golaha guurtida fadhigooda shalay aad iyo aad baan u hambaleynaynaa waana xil dastuuri oo ay lahaayeen waa shaqadii ugu weynay shaqada kamida shaqooyinka ugu waaweyn ee ay qabtaanba in qaranku marka uu halkan oo kala galaba iyaga uu sharcigu awood u siiyay inay go'aan ka gaaraan xalka waxa ay moodayaan waana dhaqan aynu leenahay talahaana aynu ku soo noolayn in aynu ku qanacno go'aanka ay hay'adaha sharci dejintu gaaraan